السلام عليكم فضلا هدي habeenku tahay ama aad keli tahay muuqaalkan hadaawanin waxa aan ka sheekeyn doonaa sheeko aad u cabsi badan aynu bilowno sheekadeena intayna sheekada gudagelin haddaad channelka cusub tahay fadlan subscribe saar muuqaalkana like gare aad baad mahadsan tahay ina mariya sheekadan waxay inooga sheekeynayaa wiil yaro dhalinyaro oo ku noolaa dal ka mid ah dalalka Carabta waxa uu ku bilaabay waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo dhawaan ka soo laabtay dalalka dibadda kadib markii aan waxbarasho ka soo dhameeyay gurigayagu waxa uu ahaa guri duug ah oo la dhisay in ka badan 50 sanadood ka hor hooyadayna waxa lagu yaqaanay inay daweyso haweenka yacni dawo dhaqameedka ay ku daweyn jirtay dadka qolkaan seexdo albaabkiisu waxa uu ahaa mid transparent yacni waxa laga arkay wax dibadda yaala oo wuxuu ahaa albaab wax laga dhex arkayo taas macnaheedu waxay tahay waxaan arkayaa wax kasta oo dibadda maraya qof kasta oo dariiqa maraya waan arkayaa habeenadan mobilka ku raago abbaaro 12 habeenimo waxaan dareemi jiray qof albaabka gadaashiisa taagan oo i daawanaya marmar gacanta taagaya markii u horeysay waxaan isirwadsmoodsiinaysaa markii labaad sidoo kale markii saddexaad si degdeg ah baan u jeestay waxaanan arkay wax sii dhaqaaqaya waxaan arkay wax si degdeg ah u dhaqaaqaya wax si degdeg ah u sii baxaya waan ka daba baxay qolkii baan dibadda uga sii baxay cidina may joogin gurigana wuxuu ahaa mid faaruq ah aniga iyo hooyaday oo kali ah ayaa joogay hooyana way huruday halkaas baan ku xaqiijistay in gurigeena la degan yahay shaydaankaan iska naaray waxaanan isku dayay inaan xaaladaas ilaabo ilaa ay iga soo gaadhay xaalad kale oo cusub waqtigu waxa uu ahaa abbaaro 9 subaxnimo waxaan daawanayay podcast-ka ninka lagu magacaabo Sacuud Al-Qahtani waanan ku qoslayay hadaladiisa si lama filaan ah waxaan u maqlay dhawaqa qosol nin ila qoslaya waxa aan is iri qosolku waxa uu ka imanaya podcast-ka muuqaalkan aan daawanayo ayaa qosol ku dhex imanaya laakiin waxaan hubaalsaday oo aan ogaaday in qolkayga laga dhex qoslayo waan iska joojiyay podcast-kii waxaanan u soo baxay si aan u weysaysto quraanna u akhristo anigoo ku jira suuliga oo suuliga dhexdiisa ku cadayanaya ayaa si lama filaan albaabkii loo soo garaacay albaabkii suuliga ayaa la soo garaacay waxa aan ku iri waa ayo waxa la iigu jawaabay degdeg u soo bax hooyadaa baa ku rabtee albaabkii baan furay si degdeg ah baan u cararay waxa aan aaday qolkii hooyaday waxaan arkay hooyaday oo huruda hooyaday waan kiciyay waxaana weydiiyey hooyo miyaad i rabtay waxa aanay iigu jawaabtay maya xaaladaas waan iska ilaaway maalin kale anigoo suuliga ku meedhanaya ayaa waxaan arkay haweeney timaheedu waxay ahaayeen timo dhaadheer oo madow muuqaalkeeduna wuxuu ahaa muuqaal aad u qurux badan yacni gabadh aad qurux badan bay ahayd waxa ay ila joogtay suuliga waa aan qayliyey waanan dhacay madaxayga ayaa wuxuu ku dhacay weysadii aan watay waanan suuxay oo miyir daboolmay waxaa arrin murugo ah in markii aan soo kacay aysan hooyaday dareemin waxay u malaysay inaan bannaanka joogo waan soo kacay waxaanan soo aaday qolkayga waxaan isku tuuray sariirtaydii xanuunka madaxayga awgeed waxa ii yimid saaxiibkay waxaanu ii sheegay inaan markiiba cisbitaalka tago alxamdulillaah baaritaano baan sameeyey wax dhib ahna ma jirin ilaa maantadan waxa aan arkaa hadhkooda oo si degdeg ah iiga soo horbaxaya waxaan isku dayay inaan akhriyo suuradda albaqara maalin walba moobilkaygana ka shido inaan furo albaabada iyo daaqadaha laakiin wax faa'iido ah ma yeelan weli guriga way degan yihiin waxaan isku dayay inaan hooyaday weydiiyo inay aragto waxaan anigu arkayo kale hooyo waa ay dhoolla cadaysay waxaanay iigu jawaabtay haa kuwan waa kuwa gurigaynala degan ee ha dhibin iyaguna kuma dhibayaane aad baan u cabsaday maalintaas kadib waxay hooyaday ii soo geli jirtay iyadoo isku dayaysa inay isasabto qalbigana ii dejiso maalmo kadib waxa aan soo toosay iyadoo gabadhii dul fadhida timaheeduna dhinac ka bannaan yihiin sariirta dhinaceeda fadhida oo ii dhowla cadaynaysa waan yaabay oo waxaan ku iri adigu yaa tahay waxay igu tiri waxaan ahay ummu xakiim waxaan ku yiri maxaad iga rabtaa waxay igu tiri adigaan ku
rabaa. Laa ilaaha illa allah. Cabsi badana halkaas bayna ku leedatay, halkaas bay ku baaba'day yacni gabadh. Maalin dambe waxaan soo toosay subaxdii hore sababtoo ah waxaan lahaa ballan dhakhtar. Hooyaday maalin walbay soo kici jirtay waa beriga si ay quraacda u diyaariso. Waxa ay ahayd markii iigu horreysay aan subax soo kallaho aan xilli hore soo kaco. Dabaqa hoose ayaan u soo degay. Intaanan gelin qolka fadhiga waxaan maqlay dhawaqa hooyaday oo qoslaysa oo sheekaynaysa. Waan baqday. Waxaan u soo dhowaaday albaabka qolka hooyaday. Waxaan arkay iyadoo keligeed sheekaysanaysa uusan cidna la fadhiyin. Yacni cidna lama joogto haddana way sheekaynaysaa. Hooyadii waan u tegay. Waxaan ku yidhi hooyo bismillaahi maxaad keligaa u sheekaysanaysaa? Waxay ku jawaabtay iyadoo xanaaqsan iga fogow warya halkan fadhiiso. In yar kadib markan xoogay fadhiyey waxay iigu sheegtay inuu qofkii la sheekaysanaysay uu ahaa haweeney duq ah oo ka mid ah dadka gurigeena la degan, magaceeduna uu ahaa Umu Xakiim. Halkaa waxaan ku xaqiijistay in gabadha hooyo la joogta ee ay la sheekaysanayso ay tahay tii suuliga iigu soo gashay, laakiin tii qolka iigu soo gashay ay ahayd gabadh dhalinyaro ah, laakiin labada dumara ay isku magac yihiin. Tan duqda ah ee hooyo la sheekaysanaysa iyo tii dhalinyarta ahayd ee suuliga iigu soo gashay in ay isku magac yihiin, laakiin ay kala muuqaal duwan yihiin. Laakiin ta dhalinyarta ahi ay iigu sheekaysay inay tahay sida duqda oo kale. Isbuucii xigay waxaan arkay Umu Xakiim tii duqda ahayd oo qolka fadhiga ka soo baxday. Waxaanay sii gelisay qol kale. Aad baan u baqday. Guriga wax nala degan jin. Acuudu billaahi min ashaytaani rajiim. Maalinkaas waxaa igu soo noqday xasuustii carruurnimada. Waxaan xasuustay inay duqdaani hooyadii la fadhiisan jirtay subax walba, laakiin waxaan maqli jiray iyagoo sheekaysanaya. Laakiin waxaan u malaynayay inay tahay hooyaday saaxiibadeed. Haddaba maalin jimco ah ayay hooyaday waxay go'doomisay ama ay diiday inay qaabisho macaamiisheedii xanuunsanayay. Waxaan soo galay qolkii hooyaday. Waxaan arkay duqdii Umu Xakiim ahayd oo hooyaday la joogta. Hooyaday waxa ay ka caawinaysay sida loo daweynayo bukaanada ay hooyaday daweyso. Show iyagaa ka caawiyaba hooyaday si ay u daweyso dadkan xanuunsanaya. Waxaan ku idhi hooyaday waxa aad samaynaysaa hooyo waa wax xaaraan ah. Dadka aad la macaamilayso ma aha dad muslimiin ah. Umu Xakiimna way i dhibaysaa. Wax kale ma aha. Waa jin i caashaqay. Waa inaad ka fogaataa hooyo. Hooyaday waa ay i diiday. Manay danaynayn xitaa haddii aan si kasta u dhibaatoodo. Ilaa imikana dhibaatadaas baan ku jiraa. Alle ha u gargaaro wiilkaas. Waxaan kaa codsanayaa inaad fikirkaaga xagga hoose nagula wadaagto. Miyaad soo badiyaa sheekooyinka noocana mise waan bedelaa? Nagula wadaag qaybta kommentiga sheekooyinka noocaad jeceshahay. Channelka noo subscribe garee, muuqaalka like garee. waad mahadsantahay.